maayo sida oo kale waxa dhinacaygan fadhiya walaalkeen oo isaguna ah wiil dhalinyaro u dhashay dalka Soomaaliland isla markaana wadanka dibadiisa uga baxay kuna soo noqday oo dhulkiisa hooyo hadda ka shaqeysta waan kugu soo dhaweynayaa telefishinka News TV iyo barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarada magacaygu waa Nuuridiin Cabdilaahi Khaliif ku dhashay Hargeysa degan Hargeysa marka aanan dhinacyo kalaba aanan eegin ee aan barnaamijkan gaarka ah ee dhalinyarta ka hadlaya aan ka hadalno horta wadan waxa uu wax ku yahay waa dhalinyartiisa wadan dhalinyartiisu aanay wax barasho lahayn iyo wadan aanay dhalinyartiisu qaar wadanka u hanuunsan oo ciidooda jecel aanay ahayn horta midna ma hagaago shakhsi ahaantayda kullay waqtiyada kamida oo aan aad u fogeyn way soo martay in aan wadankayga ka dhaqaaqo aan tahriib uga baxo ana u jihaysan wadamada Yurub oo inta marayay dhibaatooyinka saxaraha iyo Liibiya lafteeda iyo inta soo jid already waan ku guuleystay oo Ilaahay uu iga samata bixiyay balse markii aan ka badbaaday waxa la wixii dhibaato ahaa ee aan muhiimadeedii aan gaaray ee aan tagay wadankii aan u socday ayaa comparison-kii isbarbardhigii aan isku eegay wadankaygii iyo wadankan aan tagay ay laba kala miisaan leh ay noqdeen kulli qof bini aadan kasta oo Ilaahay abuuray waxa uu wax ku yahay wadankiisa qofka dhalinyarta ah in uu xisaabtamo ayaa wanaagsan inta aan wadankiisa ka bixin waxa Yurub ka horeeya iyo waxa halkan u yaala waxa weeye wadankeena amal la'aan baa inta badan la yiraahdaa amal la'aan baan uga dhaqaaqay wadankii oo aan u tagay qurbaha kulli qofka wadankiisa wax ku soo kordhin waaya dee wadan kalena waxna ku soo kordhin maayo waxna ka soo qabsan maayo balse amal la'aanta ay qiilka laga dhiganayaa dee wax jira ma xawiyaan maanta wadankeena Soomaaliland markaad eegto inta wadanka ka shaqeysa gudaheeda qolkiiba 60 waa dad ajaanib ah oo aan wadanka u dhalan wadankaasi qofna ma oran karo qofna lagama dhaadhicin karo wadankii amal la'aan baan uga dhaqaaqoon u tahriibay xawiyaan qofku horta wadankiisa haduu wax ka noqon waayo wadan kalena wax ka noqon maayo midda kale anigu shakhsi ahaantayda tahriibteedii qofkii maanta damiir lahi ee aqli saaxiibka wahay wallahi dhibaatooyinka aanu marnay hadii uu og yahay iyo waxa maanta qulubtayada iyo qalbiyadayada ku sii harsan ee aan marnaba wallahi ka masaxmayn maanta qofna uma bareereen in uu wadankiisa intuu ka dhaqaaqo dib u gaaro waxa weeyaan maalinta aad wadankaaga xadkiisa ka baxdo maalinta waxa loo xataay ma jirto xabashina kuuna ximaayo Suudaani kuuna ximaayo dantiisu eeganaya Liibiyaankuna lacag mooyo wax kala ma yaqaan badana dee 50-50 ama wad ku dhiman ama wad ka bix Yurub lafteedu dee nin iska soo carray ku arkayaan xarig bal iska ka haynaya ninkan gaalkii aynu u tagaynaa wakiin intuu wadankiisa dee ka soo duulay halkan noogu yimid inay gumeystay kiyo aad wadankiisa ugu tagtaana wal muxuu kugu sameeynaa inaad ku xisaabtantaa wanaagsan waxa weeyaan dad islaama ayaynu nahay diin wanaagsan buu Ilaahayna siiyay maanta wadankeena amal la'aan ma jirto nabadgelyo xumo ma jirto dawlad xumo ma jirto caafimaad xumo ma jirto wax aynu uga dhaqaaqno oo maanta wadankeena aynu sheegi karno aynu oran karno wadankaygii taasaan uga dhaqaaqay qofkii sabab iska sameeyay waa mid meesha taal xawiyaan Soomaaliland waa wadanka maanta jiray ee nabadgelyada aynu haysano aynu ku faanayno ee nabadgelyada lagu wada noolyahay xawiyaan marka aan dhalinyarta gaar aan ula hadlo waxa weeyaan Soomaalida oran jirtay dad waalida doonaysa nin waa la soo maray ayaa wax laga weydiiyaa waxa weeyaan tahriibta lacagtaadii iyo naftaadii labaduba way ku baabaayaan waxa weeyaan lacagtaadiina loo joojinayo oo laga tirinayo hadana dib baa lagu dhici karaa oo laga qaadi karaa hadana naftaadiina sida aad u eegtahay wiliga dib ugu eeganaysid tahriibtuna waxa ay dhashaa waa geeri nolol xumo stress iyo ilaahay oo aad ka fogaato
gaalo aad tagto oo aad gaalo waxa ay walaaqanayso aad iska walaaqato marka dhalinyarta horta aad baan ugala hadlayaa tahriibta in ay mar walba ka digtoonaadaan qof uu tagi karaa ilaahay baa dhaqaaqa haya balse dadka Yurub jooga waraysta maxaad meesha ku haysaan war maxaa la idin siiyaa amal baad qabataan sideed u nooshihiin sidee la idin la dhaqmaa laakiin haddii aad iska cararto wixii aad la kulanto aday ku taala marka anu hadalka badin maayo waxaadalna danta iyo inta muhiimadda laga raacaa dhalinyarta aad baan uga waaninayaa shayga tahriibta la yiraahdo inay ka cararaan oo aanay marnaba niyadooda aanay soo gelin ilaahay baana idinka baryayaa aniga ba ilaahay iga soo hadeeyay in aanu ilaahay qalbigiina tahriib aanu soo marin ee wadankiina uu idin jeclaysiiyo wadanka aynu ka shaqeysano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nuuruddin cabdullaahi khaliil waa wiil dhalinyaro ah oo hal mar isku dayay inuu ka baxo wadankiisa haddana u soo boqoliyay dib noogu soo noqday kana shaqeysta magaalada Hargeysa nuuruddin waxaad taariibtay oo waxaad ka baxday magaalada Hargeysa waxaad sii martay wajaale sidoo kale Itoobiya waxaad sii martay dhul aad u badan imisa wadan ayaad intaad ka maqnayd magaaladaada ama dhulkaaga hooyo imisa wadan baad isku soo martay taa ka sokow waxaad nooga warantaa bal hadda inta dhexda lagu sii jiray inta saxaraha lagu sii jiro dhibaatada uu leeyahay taariibku kulay dhalinyar badan oo imika waqti xaadirkan doonaya ama niyada ku haya ayaa jira inay tahriibaan marka dhalinyarada laftirkooda maxaad u dhalayd maxaa tala ay halkan u marin lahayd bal iyadan taag soo dhaw ka dhaqaaqistayday halkan muddo bil ah ayay sheekadan tahriibtu ay niyadeyda ku jirtay cidii aan kala tashan lahaa cidii aan Israa'iil ahayn kullay inaan ka wada tashanayno oo in aan wada baxno ay noo jideysnayd hawsha waan wada wadnay maalmaha ka mid ah ayaanu ka baxnay Hargeysa adoo Itoobiya sidii ku dhaxmarnay ilaa Suudaan waxa weeyaan tahriibta saxda ah waxay bilaabantaa marka Addis Ababa aad ka baxdo saddex qofka bini aadanka ah ee nool ee Ilaahay abuuray aan u wanaagsaneyn horta waad heshiinaysaan oo waad walaaloobaysaan shay gaajo leeraa hurdo la'aan iyo socod aan nasasho lahayn saxaraha laftiisa waxa weeyaan waxa dhaanta saxaraha Liibiya adoo badda ku dhinta saxaraha Liibiya waxa laga ducaystaa horta in aanu Ilaahay gaariga aad saarantiin waxba aanu Ilaahay idinku yeelin waxa weeyaan wax Ilaahay laga magan galo waana marnay saxaraha 7 habeen baan ku jiray annaga iyo jamaacadayadii ikhtiyaar kama haysano wana loo hayaayo nin Liibiyana gaariga nagu wada haday kaadi u degis noqotood kaadi ay ku qabato ninka gaariga wada marka ay kaadidu qabatay oo dhaadhaco oo ka faa'iideysato jaaniska mooyaane hadii ay qabowdo oo ay raagto kaadidiisu waa inaad isku sii deysay noqonaysa annagoo gaariga saaran inaad iska sii deysay noqonaysa saanay adiga naftaada waxba u yeelin horta nolosha tahriibtu markay ta ugu fudud ay noqoto taasay noqonaysa adoo karaamo lahaa markaad kaadidaad iska barsirin lahayd aad sii deyso waayo deekan gaariga wata oo Liibiyaan ku dili karaa maxaad ii joojinaysaa waqtigan ku xisaabtamaya midda kale magafihii ay noqotay magafe wax alla wax naxariis ah oo uu cid u hayaa ma jirto laakiin naxariis waxa uu hayaa waa lacagta u shaqaysanaya waxa imanaysa in dee hablii kula socday qaar ka mid ah inta uu ka haysto dee sidoo doono ka yeelo waxna aanad oran karin waa inantayadii ama waa gabadhaydii waxaad iska tahay in qofka daawanaya taalifteedu dee waa nuqsaan iyo waxyaabo xun oo qalbigaaga iyo xusuustaada raad xun ku noqonaya xawiyaan Liibiya gudaheedii waxay leedahay mushkilaad aad u badan in xira lagu soo dhaco lagu afduubto in lacagtaadii inta laga qaado hadina dib lagu dhaco in lagu xidho in la idin soo daatood baxsataan taalifteedana xaweenkii Ilaahay ka badbaadinayeen ba ka badbaada in dilka qof la dilaya aanu wax weyn aanu ahayn wax yar basiida u noqdo iyadoo dhibka aad ku dhex jirto in haddana ay badii ku sugayso
badii oo aanad fuuleen markab doonna aanad fuuleen bacdii aad fuulayso gooma ahayd ood ku murmi kartaan qaar nixi karaan marka badweynta la tago haddii aan la sii tashan oon dee alla ka cabsi la badin taa lafteeda anuu badda waan maray oo waqtigii aan badda marayay horta anuu shakhsiyan dee si aan ahaa ma garanayo way naftaydu way qanacdaysay nafta intaasoo dhiba soo maray dee baddana waxba umaan arkayn waxa weeyaan inkastoo riski ay baddu nagu yar kacday taroonyahaanu sidanay aanu sameecadda dhigta aanu ka shaqaynayn shidaalku gabaabsi naga soo noqonayay taan goomaha aanu saarnayna qori u jabay aduu aanu isku dhex yaacnay oon dee yar naxnay inkastoo dee dadka badidoodu ay yar ooyeen haddana ilaahay baana uskanay sidii buu ilaahay markab noogu keeno badda nooga saaray oo aanu ku tagnay talyaaniga laftiisu qofku marka uu halkan ka tago Yurub baa tagtay inuu ku qanco maahe waxa weeyaan horta dadkan eeg sidii u nool yihiin qosol yar oo nin gaalay uu kaala hor yimid ha ku qancin waxa weeyaan noloshii nalagu soo dhaweeyay horta dee kiniisad hooy bay ku noqon cunto kiyo aad u gasho iyo in hurdadaadii la kantaroolo waxa sibada wax wadankeena yaala ma cidna hurdadeeda lama kantaroolo cidna cunto kiyo looma galo qof kastaaba wuxuu u nool yahay xorriyad shay xorriyad la yiraahdo halkaas iska dhigas dee waxa weeyaan marka ay noqoto dhaqaale ahaana dee nin bini aadan ah oo muwaadin oo wadankiisa jooga oo ilaahay si xor ah u baryaya in uu gaal isku daba taaga maaha arsaaqdu ilaahay siinay waxa weeyaan maanta gaalku waxa uu ku siiyaa wax munaafacaad lama wax meel aad ku gaari kartana ma anuu soo noqoshadaydii doorta saaxiibul ciyaal anoo ah oo aabba ah kullay mas'uuliyad waxa iga saaran tahay waa awlaadayda igama saarno sharci aan Yurub ku sugo iyo cuntaanku ku jiro iyo kaam aan kolba seexdo balse mas'uuliyaddu waxa iga saaran tahay awlaada ilaahay siiyay iyo reerkayga sidaan u wadan lahaa taas ilaahay janno igu geyn karaa haddii aan dayacana dee aan ku mudan karaa qaybteeda dhinacyo badan markii aan ka xisaabtamay anuu waxa ii noqotay inaan waddankaygii dib aan ugu soo laabto ama aan ku qado ama aan ku dhargo in aan ku qanacsanaado waddankaygii oon imikadan joogan saa ugu qanacsanahay oon doonayaa inaan waddankayga aan ku dhex noolaado oon ku dhargo alxamdulilah aad baan ugu qanacsanahay maanta waddankayga wax ii dhaamo ma leh alxamdulilah marka halkaasaan taana kaga baxay mahadsantahay Nuuruddin wali dardaaran dhalinyarta imika doonaysa ama hamigooda ku jiro maskaxdooda ku jirto inay taariibto oo maadaama ay shaqo la'aan ay leeyihiin shaqo ma haysano shaqo abuur ma haysano dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka soo qalin jabiyay ay shaqo la'aan la fadhiyaan guriyaha kuna niyoonayaan ama bas ay doonayaan inay taariibaan oo wadanka dibadiisa uga baxaan maxaa dardaaran halkan u marinaysa bismillaah xaween horta mid baan oranayaa aniga qudayda markii aan tahriibiyay waxbarasho la'aan ma ahayn oo nin waxbartay baan ahaa oo jaamacad ka baxo iskuul ka baxo secondary ka baxay waxa weeyaan Hargeysa markaan ka tagayna dawaan shaqaysanayo amal la'aan kamaan baqayno meherad baan haysto meheradaydii baan ka cararay balse ardayga ku andacoonayo jaamacad ayaan dhameeyay wadankiina kuma hayo wax amal ah horta ardayga marka hore inuu ogaado ayaa wanaagsan waxbarashadan uu wadankiisa ka bartay haddii uu la tahriibo oo Yurub la tago Yurub kama shaqayso in lagaaga bilaabayo waxaad ogaataa levelkii ugu hooseeyay ee uulada waliba ka sii hooseysay ninka gaalka ah interviewga ka qaadaya waxbarashadaadii uma baahna laakiin isagu inuu barnaamij ku geliyo ayuu u baahan yahay wadantiisa kugu download gareeyo kugu shubo oo taa ku shaqayso waxa weeyaan dameer malab sida ayuun baad ahaan waxbarashadaadii oo soo duugowday in baad halkan kula soo noqon dhaqankii gaaladana adoon yeelan waxa weeyaan ardaygu haddii uu jaamacad ku bartay Hargeysa taadar baalashana waad noqon kartaa waa xalaal day oo xoogaagiyo xalaala keeriyoneer dad qaadato 4 kartoon dul dhigato ama 4 shay dul dhigato wax xalaal wad ku shaqaysan kartaa waxa weeyaan Yurub shaqana kaama horeyso cidina kuma sii joogto ninka gaalkiina kaale hebel naga maqnaaba oo shaqadan ka oran maayo
hadduu doono intuu negative kuu dhiibo waddan kale kuu dhiibay waddanka kalena negative adoon nacaybaad tan aad ku soo noqon tanna waxba ka noqon maysid marka waxa weeyaan waddanka camal wuu buuxaa qofku horta inuu ilaahay aaminsanaado ayaa wanaagsan waddankiisa jeclaado waddankiisa hoos u eego waxa weeyaan beer aad falataana waa mid meesha taal wax aad camal la'aan ah oo waddanka horta jirtaa ma jirto ama xumana ma jirto marka waxa weeyaan waddanka aamina ayaan anagu idin leeyahay dhalinyarta wixii dee niyadeeda ay ku jirto in ay tahriibaan haddii social media ay noqoto Facebook ku arkay saaxiibkii oo yar taagtaagnaayo Yurub markii uu tagay dee yar salaxnaaday dee waxa weeyaan maxaad ku salaxnaatay dee cunto taargiso kale ma cunaa dad hilib doofaar ba cunaa waxa weeyaan dadkan isku cunto ma nihin isku dhaqan ma nihin waxa weeyaan meesha lagama eedaamo salaamu calaykum la ismeeraa wadi koob shaah iskuma shubto la isma martigeliyo qof kastaaba waxa weeyaan xiniyiisu saaran marka in qofka aad weydiiso walaal bal ka waran waa sidee meeshu aad tiraa ayaa dee qurux badan haddii aad tiraahdo sawir qurux badan bu soo dhigo aadna cararto taadna sawirin bad waddankii ku soo kordhisay sawirkiina waa laga dhintaa sawirku wuxuu soo kordhiyaana ma jirto sawirka waa laga dhintaa laakiin ka dhimanaya sawirku inuu waddankiisa dee isku dhex sawiro wanaagsan waddankiisa uu isagoo nool kaga shaqaysto marka halkaasan kaga baxay